anigoo magacaygu yahay Yaasiin Cali Aadan waxaan halkan ku matalayaa shirkadda Seco Solar Energy dhammaan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha anigoo u gondodegi doona soona gaabin doona runtii xilli dambe ayaynu joognaa soona gaabin doona kelmaddan maanta aan halkan ka oranayo waxaan ku horeynayaa in shirkadda hadafkeeda ama guud ahaan ama sloganka aanu ku soconnaa uu yahay in la helo future bright ah oo runtii oo soolaraysan waxaan uga jeednaa taas si loo gaaraa runtii weli lama gaadhin oo mustaqbalka brightka ah ee solarta ah Soomaalidu weli may gaadhin hase yeeshee waxay leedahay Soomaalidu resource aad iyo aad u ballaaran oo nooc walba isugu jira sectorkan gaar ahaan haddaynu eegno wuxuu ku fadhiyaa resource aan runtii la soo koobi karin waxaana ka muuqata xilliyada ama saacadaha aynu cadceedda helno adduunyada inteeda badani ma hesho waqtiyada cadceedda aynu helno ee laga faa'iideysan karo lama helo hase yeeshee siday ahayd loogama faa'iideysan Soomaalida waxaad moodaa in Ilaahay u nimceeyey nimcadiina ay nooc walba noqotay kadibna ay isdhigasho badan dhacday wadamada horumaray haddaad eegto meel walba waxa yaala hardship ama environment ha ahaato baraf ha ahaato kulayl ha ahaato ama ha ahaato resource kale kadib inaga xaggeena waxa dhacday isdhigasho badan ilaa la waayo hardship yimaado runtii waxaan qabaa inaan mustaqbal fiican sectorkan runtii laga gaareen iminka waxaa muuqata dagaaladan bariga dhexe ka socda waxaa moodaa inay qaali gareeyeen shidaalkii oo shidaalkaas oo kale hadduu qaali garoobo waxa laga yaabaa ama la waayoba in runtii hardshipka ka yimaada loo bayro xagga sectorka maxaan ku rahdaa energy-ga ama la xoojiyo waxaynu ognahay qolyaha booyadleyda ah ee biyaha dhaamiya waxay aad iyo aad u necab yihiin in roob doo marka abaaruhu jiraan aad bay u necab yihiin runtii qolada sectorka solartuna malaa iminka waxayba aad ugu faraxsan yihiin shidaalku laba waayoba oo u qaali garoobo si maxaan ku rahdaa sectorkan loo horumariyo intaasi waa guud mar haddaan u gondodego shirkadda Seco waxa weeyaan waa one of the leading energy sector companies experience-keedu wuxuu sii jiray muddo dhowr iyo 10 sano ku sugan waxaa la aasaasay sanadkii 2008 ilaa iminka way shaqaynaysaa waayo aragnimo baaxad leh runtii ayay u leedahay qaybaha kala duwan ee sectorkan shirkaddu ma aha oo keliya inay xidho solarta hase yeeshee waxay leedahay warehouse-yo iyo meelo lagu wasaco ama lagu iibiyo distribution centers bay leedahay Seco waxa ay focuska mainka saartaa runtii oo ay focuskeedu yahay xagga marka laga eego servicedeeda waxaa ka mid ah householdada ama guryaha in la saaro businessyada donor funded projects oo noogu badan oo iyagu ugu badan waxa kale oo iyana ka mid ah sida tusaale ahaan aanu donorska ama sida gaarka uga shaqeyno waxaa ka mid ah World Bank waxaa ka mid ah UNDP-da UNICEF Save the Children mashaariicdaas oo dhan ay bixiyaan runtii waxay ka yihiin lead waxaa tusaale inoogu filan iminka wasaaradda tamarta afartii mashruuc loogu talagalay waxbarashada iyo caafimaadka saddex ka mid ah Seco ayaa qabanaysa oo ku guuleysatay waa good example impact-ka ama maxaan ku rahdaa saamaynta ay shirkaddu leedahay waa mid aad u ballaaran hase yeeshee waan u degi doonaa visionka yar ma hoos baad u degtay dib soo noqo one down yeah yes visionka ama missionka ay shirkaddu leedahay waa iska basic oo waxa weeyaan in la helo efficiency oo loo helo maxaan ku rahdaa access loo helo clean energy-ga inay iyo shirkaduna ahaato lead hase yeeshee targetka ama mainka noocahay waxa weeyaan environmentka in protection loo sameeyo oo mar walba emissionska iyo gaseska environmentka la dhimo waayahay waqtiga dheer ee ay shirkaddu soo waday hawsheeda laga soo bilaabo 2008kii waxyaabaha ugu badan ee chainka waqtiga inta la eeg la soo maray waxa kamid ah experience-ka
oo noqonaya mid farsamo iyo mid productive productka markaan leeyahay waxaan u jeedaa sectorkan dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah in products aan qaangaar ahayn aan idhaahdo ama aan tayo lahayn marketka lagu dawaqiyo marka waxaa ku soo maraya alaabooyin aan munaasib ahayn hase yeeshee maanta shirkaddu maadaama ay waqtiga intaa lee kusoo jirtay waxay leedahay suppliers u gaara oo aada u waaweyn waxayna wakiil u tahay shirkado badan oo waxaan ku dhahdaa soo saara solarta oo ay ka mid tahay shirkadda Sansig istaraatiijiyadda guud shirkaddu waxa weeyaan expansion basically oo business strategy waxa weeyaan expansion and distribution oo dhinaca productiga isagana noqonaya sidoo kale in after sale service customerska ama dadka nagu xidhan hadday yihiin institutionno iyo hadday yihiin customers caadiyaba in loo sameeyo supply chainka in iyadana tayo la siiyo distributionka iyana la hagaajiyo iyo wixii la halmaala waan soo koobaya waan ka soconaynaa ka socon ya bastaado naasba waaye eriyooyinka runtii focuska ka socotana productska aan iibino waxaa ka mid ah oo aan soo dejino waxaa ka mid ah structureska hadday tahay roofka iyo ground mountingka labadaba waxaa ka mid ah bateriyada waxaa ka mid ah wireska waxaa ka mid ah solar systems oo aan sideeda markay noqoto seriska hadday tahay iyadoo oo generator leh iyo iyadoo caadiya street lightingka waxaa ka mid ah solar pumpeskaas xagga biyaha ah waxaa la socda oo weheliya in ay jirto iyana solar water treatment oo noqonaya biyaha in la macaaniyo laftarkooda mashaariicdan Somaliland ka fulina biyo macaaninta waxaa ka mid ah Caynaba ceelka Caynaba solartiisana naga saaray biyo macaanintiisana Seko ayaa samaysay biyo macaanintu waxa weeyaan waa waxyaabaha inagu cusub ama tiknoolajiyada aan doonayno meelaha biyaha qaraadh leh in ay Seko ka howlgasho oo runtii treatmentka biyaha loo macaaniyo magaalooyin waaweyn oo Somaliland ka mid ah oo Laascaanood ka mid tahay Caynabadaas ka mid tahay Elfweyn ka mid tahay degmooyin waaweyn ayaa waxaa jira biyahooda aan la cabi karin oo ay biyahooda aad u qaraadh yihiin impactka haddaan in yar dul maro Seko waxay gaadhay approximately ama taqriiban in 10,000 oo customer ku dhow ama ka badan street lightingka 8,000 way ka badan yihiin waxay u badan yihiin Puntland iyo koonfur Somaliland laftarkeeda wax badan baan ka qabanay iskuulada ilaa 520 iskuul oo runtii ay ku jirto imka iskuuladan aan imka ka shaqeynayno hospitaalada 280 hospitaal 35,000 oo solar kits ah oo ugu dambeeyay mashruucii siibka ee World Bank la oran jiray oo markaas ayna qayb lixaadaan ka qaadanay mashaariicda aan qabanay haddaan picture kooban iyagana idinka tuso mashruuca ugu horeeya waa 140 almost 140 kilowatt mashruuca koonaha waxa weeye xaafuun oo ku taala Puntland oo simple one example laakiin mashaariicda kale laga qabtay aad iyo aad ay u badan yihiin waa fishery cold chain oo loogu talagalay in lagu qaboojiyo kalluunka xeebaha ka ku xiga waxa weeyaan UNDP Hargeysa oo muddo dheer iminka solartaas saaray oo ay filisay Seko waxaa ka ku xiga waxa weeye mashruuca mayd iyo xiis oo iyana cold chain aan u sameynay Somaliland Development Fund ayaa mashruuca bixisay ama SDF sida loo yaqaano mashruucan koonaha ee ugu hoosta waxa weeyaan Borame water system magaalada Borame sidaad ka warqabtaan waxay ku cabtaa solar system almost 1 megawatt oo ah mashruuc aad u ballaaran 1.7 milyan mashruucaas waxa fulisay company Seko iyo company la yiraahdo NS Energy waana mashruuca biyaha ballaarinta Borame ay magaalada Borame biyaha ku cabto mashruuca ku xiga dhexda waxa weeye mashruuca سير أو وزارة تمرتو أي ليد كتاي ومشروع عام من كوضنا والله بيجي سيدة قوابات أو إسكولو يسوي شراء يو قوابع عافمات
almost marka la isu geeyo wuxuu ku dhawaanayaa ilaa 2 megawatt oo solar ah marka la isu geeyo waadkeeda mashruuca ku xiga waa kan idin sheegayay waxa weeyaan waa biyo macaaninta Caynaba oo iyana waa example waana teknolojiyada aan doonayno iminka inaanu aad u promote garayno wadanka markay noqoto planiska mustaqbalka seeko waan soo koobayaa waxaa ka mid ah in aanu ballaarino serviceka iyo productska labadaba oo aanu tayeyno sidoo kale industrial investment Somaliland ma jirto in warshadaheena waaweyn sida kuwa kalluumaysiga oo kale warshadaha lightka laftarkooda waxay u baahan yihiin investment caalami ah oo runtii lagu maalgeliyo si loo helo light jaban way jiraan Afrika oo dhan way ka jiraan Europe iyo Mareykan inta way ka jiraan investors ku meel way joogaan taa laftarkeeda aad ayaan isugu hawlaynaa in lagaga maarmo biodiesel systemkan lagu sameynayo diesel challengeska runtii wax badan baa laga hadlay oo presentationadii ugu horeeyay ayaa wax badan taabtay hase yeeshee laba qodob oo kaliya ayaan ku soo koobay halkan waxa weeyaan trustka aaminaadda la aaminsan yahay solarta ayaa aad bay u yartay waxaan maqlay anigu bariga ma baan jirin soo yaraaye dawladdii Soomaaliya hore ayaa Soomaalida waxay ugu taag weyday cunitaanka kalluunka markaasaa nin geel siiyey ilaahay muxuu ku falayaa nin ilaahay geel siiyey muxuu qarmuunkiisa ku falayaa bay soo istaageen kalluunka kadib waxaa lagu barashar gareeyay waa loogu heesay waa shay macaan cuna malayga wax badan baa lagu bushkareeyay dawladdu halkan waxa maanta ka hadlayay waxaan filayaa inuu joogo haddaan u kicin qoladii tayada runtii waxaan jeclaa inay aad u taabtaan halka ka khuseysay maanta meetingkoodii halkan ahaa sababtoo ah marka ay la shaqaynayaan sectorka noocan oo kale ah inay yihiin hay'adii tayada waxay naga khuseeyay ugu weyn waxay ahayd productiga laftarkiisa ugu ganacsanay hadday tahay solar panelska hadday tahay batterieska hadday tahay inverterska iyo wixii la halmaalaya wiringka in ay tayadooda inaga hubiyaan sababta waxa weeye qof kasta oo aad taado solar kala hadal ama wax qorayaan waxa may qabataa intay noolaanaysaa aaminaad la'aan iyo hebel bay ka xumaatay nin wasiiran bari garanaya wuxuu yiri $5,000 baan ka bixiyo wallahi waa sida qashinka guriga u saaranta wax allaale waxay qabataana ma jirto gabigeedu way soo kackacday marka waxay ku tusaysaa productska ama alaabta la iibinayo materialka ayaa aad quality-gooda u hooseeya marka taasina waxay keenaysaa aaminaad darro wasaaraddu way nala joogaan madaxdeedii agaasimayaashii tamarta halkan u fadhiya waxaan jecelahay arrintaa in runtii alaabta la soo dejinayo ee solarta ah in aynu kala shaqayno qolada tayada oo ay alaabta laftarkeeda inaga kontroolaan ama lagu soo rogoba dee kumbaniyo maxaan ku rahdaa taya leh Fairstyle solar products oo kale ay yidhaahdo